deegaanka aad u tiirinayso kuwan kale Soomaaliyeed dhulka wax ku lahaayay aad dibka u geysanayso deegaankooda aad bawaad joogtayo waxaad ku leedahay ganacsi iyo hanti iyo business yo waaweyn oo xawaalado iyo taqaana telecommunication iyo wax walba leh oo ay dadku ku leeyihiin marka waxa weeyaan isku dirka noocaasa waxay geeyaan ma ahayn guryahoodii bay joogeen qofka baydhabo joogay qofka laascaano jooga waxay kala duwan yihiin ma jirto waa dal Soomaaliyeed waxaan maqlayay mid le sarkaal isku sheegayo oo leh dadkan xabashida ka sokaysa in xabashi meesha la keeno nidaamka saa u hadlaya hadda nidaam aynu inagu hadda soo qaadi karno aynu afaarihiisa bageli karna ma aha inaga saa laga yaabo waqooyi inay u soo dhaweeyeen dadkii reer waqooyi markaa ka yimid abaarihii soo dhaweeyay beeraha siiyay guryaha siiyay in maanta la yiraahdo koonfur baad ka timaadeen ama baydhabo jannay baad ka timid waxa weeye runtii waa arin aad iyo aad u foolxun يعني wadaada baa yimi laascaanood kulli dadka in badan baa taariikhda haysan ninkii Ingiriiska joogay baa wuxuu yiri ninkan ka masaafuri magaalada hebel hebel iyo sheekh hebel hebel ninkaasi galbeed buu ka yimi garajaamac wuxuu yiri hadaan labada mid masaafurinayo Ingiriisow adaan ka masaafurin lahaa ninkan dambina kuma haysid waxa la wixii meesha ka dhacayna kuma raacsanin maamulka Somaliland iyo cidii u shaqeysa يا أرنتا مسؤولية ده إسكال آخرية أدومبا إن عرب ديرة واتقرن ودتكنا وقرن يعني إنك ده هوشة وضوين عرب ديرة دتكن كلا وقعمه سي يوحي وحلود دري مهمي معها دتكن ريال العسعانودنا وحن لا وروي وحيدن كو عطاتي إن مجنتين مجن لا مجن مبريسو لما مجن اسمه بريان سيدان دان تالا يدن كربا إن وقد دقيقة حتى أرنتن marka waxa weeye taasi waxay ka mid tahay waxyaalihi hore oo dadka daraawiishta ah oo dhulka digan magacoodii dhagtooda lagu dilayay waana wax lagu tashaday oo la yiri dadka dhulka digan in dhagtooda iyo magacooda iyo muuqooda la baabiyo oo taariikhdii hore ay lahaayeen dhulka la geliyo culimadu inay ka hadasho cuqaashu ka hadasho dadka wax garadka ay ka hadlaan dulmigu meeshu doona bari laascaanood buu ka dhacaya saadamba meel kale ka dhici doona war kuwan inay wax u eegan baahan kuwaasan waday kuwaas saaki ilaahay baan kugu dhaariyay wallaahi oo billaahi oo tallaahi nolosha oo maanta laascaanood nagu qabtay laascaanood 10 roob baan ku dhalay 8 roob gaarigan ay saarantay 25 sanaan joogay arurtana ku soo tagnay aabeena ku soo tagnay xandadayni hore waan ku soo tagnay kobolcaan baa ku socona inta naga maqan xoolaha naga maqan ciyaal baa naga maqan waxa iga dhacay Soomaaliland baa iga dhacday agcadaama magaalada la iga soo saaray Soomaaliyeed baan nahay waxaan hadlayna ma leh waxaan galabsana ma laascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan darro adduunka laguma arag muwaadiniin dalkooda laga tarxiilo Soomaalida mooyaane gobolada waqooyi oo caadaystay inay mar walba dib u celiyaan dadka reer koonfur galbeed kama hadlayno wadanka Haiti oo Joe Biden 100,000 oo qoys hal maalin tarxiilay iyo darbiga Mexico la isaga xijiyay kuwaas oo ah dhibaatooyinka Mareykanku u geystay malaayiin qoys oo xitaa noolaha kale uu ku jiro lagu kala irdheeyay mana aha waxaan ka hadlayno Saudi Arabia oo mar walba si joogto ah intuu dadka u qabqabto iyagoo calalaha intay xiran yihiin kaliya wata intuu xiro inta kaliya kuma daayay sidii qashin qubkii ku daadiyo xuduudaha dalalkay ka soo jeedaan kuwan aan soo sheegnay waa dalal ku riyooday in dad shisheeye ah ay aakhirka kala wareegi doonaan dalalkooda arrinta aan maanta ka hadlayno oo ruux walba oo damiir Soomaaliyeed uu ku harsan yahay uu hadal hayo waa dhacdada raafka laascaanood ee loogu geystay dadweyne muddo dheer ku nool magaalada oo ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed ilmihii meesha lagu dhalaa ilma ku dhalay waxa la kala geeyay qoysas hooyo iyo aabbo awoowe iyo ayeeyo iyo caruur yar yar waxa laga kaxaystay goobahoodii shaqo iyo suuqyada magaalada ilaa iyo hadda way socotaa oo xaafadaha laga guraya haddaba wadan shisheeye habal iska dhigay oo muwaadiniin habal la raafay maxaa loo cuskaday waa arrin la xiriidha nabadgelyo darro iyo dilal cidda geysatay aan la garanaynin siday sheegeen dambi waxa gala hal ruux ama koox laakiin waxa laascaanood ka dhacay waa isir beegsi waxayna ceeb ku tahay ummadda reer laascaanood iyo xafiiska nabadgelyada ee halka ka jira oo shaqadiisii gabay haddaba jaaliyadda khaatumo ee gobolka West Midlands ee magaalada Birmingham oo arrintaasi ay aad u dhibtay ayaa kulan degdeg ah
oo isugu yimaadeen maanta kaga hadlay siday uga xun yihiin magac bi'inta maamulku sheega uu ku hayo deegaanada SSC arrintaasi oo jaaliyadda meel walba ay joogaan ku soo noqonayso oo ceebteeda wadooyinka ay la mar laayihiin waa cabdi askar oo idinku duwaya hadalladii ay jeediyeen qaar ka mid ah waxgaradka bulshada SSC ee magaalada Birmingham oo ku saabsan dhacdada foosha xun ee ka socota Laascaanood. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله waxaanu isugu nimi halkan annaga oo ah jaaliyadaha reer Khaatumo ee ka soo jeeda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn inaanu cambaarayno oo wax ka niraahno falkii waxashnimada lahaa lagaga raray dadka masaakiinta ganacsatada ah muwaadiniinta ah deegaanka Laascaanood ee lagu daadgureeyay laguna daadiyay banaanada ku yaala deegaan dhulkaas kaleeto iyadoo oo loo adeegsanayo magac ah in aysan ahayn dad deegaanka u dhashay darteed dal Soomaaliyeed lama kala laha meel uu ku yaalaba runtii dhacdadaasi ka dhacday Laascaanood shalay iyo daraad dhibaatada badani ay ku saameysay qoysas badan iyo dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo hanti ku lahaa deegaan ku ahaa deegaanka Laascaanood waxa weeyaan waa dhacdo runtii ay jaaliyadu sida ay uga hadlayeen xubnihii kale jaaliyada darkeyseen ay dhibsadeen qof kastoo damiir leh oo ka danqanaya insaaniyadda iyo bini'aadanimada iyo islaamnimada intaba uu ka damqanayo waa dulmigana in mataqaanaa la isku waafaqo ma aha waa in laga hadlaa oo la diidaa dulmiga sida ay uga hadleen madax badan oo ka mid ah madaxda dowladda iyo madaxda kale ee mataqaanaa dhaqanka intuba waxa weeye runtii arrinta iyada ah waa arrin saameyn xun yeelanaysa dadka iska horkeenaysa ummadda isku diraysa meel kastoo ay wada joogaan colaad isu gelinaysa sida daraadeed arrintani haddii ay tahay arrin sidii hadda la sheegayay amni darteed loo sameeyey waxa weeye amniga ciddii ku eedaysnayd amni darrada inay samaysay in la soo taagay ahayd maxkamad ama laguba soo eedeeyo haddii doon haba lagu waayo laakiin iyadoon qofna la eedayn in bulsho dhan oo deegaanka ku nool oo xubna ka ah in la yidhaahdo kulligood waxa weeye waa la raafayaa oo dushaa laga qabanayaa waxaa muuqata in la doorbiday qofkii miskiin baa miska la fuula leh qof aan ka fog deegaankiisii iyo meeshuu deganaa in la doonayo in dhibaatada loo geysto taa micnaheedu waxa weeyaan deegaanka aad u tiirinayso kuwan kale ee Soomaaliyeed dhulka wax ku lahaayay aad dibka u geysanayso deegaankooda aad bawaad joogtayo waxaad ku leedahay ganacsi iyo hanti iyo businessyo waaweyn oo xawaalado iyo mataqaanaa telecommunication iyo wax walbaba leh oo ay dadku ku leeyihiin marka waxa weeyaan isku dirka noocaasa ee mujtamaca dhex imanaya dibkiisu yeelanaya cawaaqib xun bay yeelanaysaa arrinta cidda samaysay hadday ciidan tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday cid kale tahayba waxa weeyaan iyo hadday ashkhaas tahay intaba waxa weeyaan waa ay ku mataqaanaa khaldameen gaf meel ka dhac ah iyo dulmi amaam Allah lagu xisaabinayo weeyaan ku noqon maayo arrinta iyada mar dambe waxaan leeyahay dadka iyaga ah ee dhibka loo geystay Ilaahay ha u wado oo dhibka ka qaado hana laga raali geliyo oo ha laga noqdo falka khaldan ee la geystay oo dib ha looga noqdo cidii ku lug lahayd ee gacanta geysatay inay ka noqdaan oo ay dib uga noqdaan ayaan mataqaan u soo jeedinaynaa waxa kale oo aan u sheegayaa cid alle cidii kale wax ka qaban karta inay gacan ka geystaan oo saxaan oo ay khaladka isaga dib u saxaan oo ay qabtaan waa arrinka isaga dadka deegaanka haddii ay ahaan lahayn aqoonyahan haddii ahaan lahayn waxgarad haddii ahaan lahayn odayaal haddii ahaan lahayn isimo cid walba waxaan leenahay waa inay mataqaanaa iyaguna ay damiirkooda cabiraan oo ay meeshangareeyaan waxa meesha ka dhacay xumaatada uu yahay oo ay soo jeediyaan ra'yigooda iyo fikradooda saliimka iyo sida halka ay ka taagan yihiin ciddii gacan ka geysan kartana inay gacan ka geysato sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa in ay dadku mataqaanaa af iyo adinba arrinka isaga ka soo horjeestaan waa fal aad u fool xun waa dhibaato loo geystay maanta iyo xalay waxa laga sheegayaa Laascaanood
caruur iyo hooyadood iyo aabbahoodoo la kala qaaday oo dayacan oo cid haysan loo raadinayo ama lala doondoonayo in guri la geeyo oo kale waxa weeye runtii waxa aynkaasoo kaleeta ah cawaaqib xumadeeda maalin bay soo noqonaysaa intaani cawaaqib xumada soo noqonin waa in laga hortago oo laga dhiidhiyo oo meel laga istaago insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أولا إلهي بمهد سكاله noo sahlay inaanu sidaa wanaagsan isugu nimaadno nabadgelyada allahaasaa mahad oo dhan u sugnaatay mahad alle kadib waan ka xunnahay boqolkiiba boqol waxaa meesha ka dhacay meesha la laascaanood ee dadka lagu marmarsooday boodh isku qarinta looga saaray ganacsigoodii iyo deegaankii ay hadda dadka ka mid ahaayeen ee ay 30 sano meesha u dambeysay ay joogeen 30 sanana aysan waxba geysan jirin dhibaatadu markay timid iyo dilku waa la ogaayay hadda waa un marmarsiyo iyo dadkii ka hadlay ee yiri gudiyaha loo qabtay iyo wixii uunba hadda boodhka la isku qarinayaa dadkan meeshay ku baxaan iyo cidda disha waa la yaqaanaa marka dadkan aad baan nooga xunnahay dadkan ku marmarsooday ee ku gafay aad baan nooga xunnahay waana ka raali gelinaynaa haddaanu nahay dadkii ka soo jeeday uun gobollada waa marmarsiiyo waxay geeyaan ma ahayn guryahoodii bay joogeen qofka baydhabo joogiyo qofka laascaano jooga waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa dal Soomaaliyeed waxaan maqlayay mid le sarkaal isku sheegaya oo leh dadkan xabashida ka sokaysa in xabashi meesha la keeno nidaamka saa u hadlaya hadda nidaam aynu inagu hadda soo qaadi karno aynu afaarihiisaba geli karna maahe aad baan uga xunnahay Soomaalidana waxaanu leenahay dudumadii annaga mar hore nagu dhacday baa kuwana maanta ku duntay aanu annagu lahayn in badan waduduma nagu jiiftay hana laga qaado ee Soomaaliyeed dhan diiday inay dudumada naga toosiso nagu jiifta oo aanu cid walba ugu tagnay oo cid walba niri warkaala oo meeshan wax nala sameeya meesha hawl waa ku dhibanahay dhibkii unaanu qabnay baa yaa dadkii kale marka waxaan imaan doonto in la yahu isnagast yaa ku xiga kuwan marka mar horaanu in badan qaylinay anagu hadda hiirdaysaba hadda qoladan lala fuulay iska dulqaata aad iyo aadna waa uga xunnahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد dhammaan deynteeda meesha isugu nimid waxaan halka u nimid inaanu aad iyo aad uga xumaano wixii meesha ka dhacay annagoo ka muslim ahaan ka Soomaali ahaan iyo ka community ahaan dhammaan annagoo isku duuban waxa weeye runtii arinta marka si fiican loo fiirsho ama aad fiirisid cawaaqibta iyo waxa ka dhalanaya waa wax aad u xun nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri munkarka qofka arka waa inuu gacan wax kaga qabto haduusan karin waa inuu carabka wax kaga qabto haduusan karin waa inuu qalbiga kaga qabto oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam annagu marka gacan ma awoodno hadda oo meeshan joognaa waxa weeye qurbo waxaanu laakiin awoodna inaan carabka wax ku nidhaahno ka Soomaali ahaan aad iyo aad ba arinta u cambaaraynana waana inkirana dulmigu noocu doonayaba ha ahaado meel kastana ha ka jiro cidii doonana ha geysato dulmiguna ma fiicna in dadka la isdulmiyo nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa inoo sheegay inaanu dulmiga ka baqano oo qofka madluumka ducadiisa waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay waxa kamida qofka madluumka la dulmiyo ducadiisa ilaahay macnaha markiiba uu aqbalaa si degdega ilaahay ugu soo jawaaba qofka subhanahu wa ta'ala dadka masaakiinta ganacsatada ah odayaasha ah umulaha ah caruurta haystay shaqaysanayay guryahoodii ka soo kalahay aroortii yaa rasaaq yaa fataax dhahay ku soo kalahay suuqa inta laga qabtay la ururiyay laga dajiyay meesha la yiraahdo gobolka mudug arinta ka islaamnimo ahaan aad baan u inkiranaa waana cambaaraynana wixii waxa ku dhaqaaqay iyo wixii ka dambeeyay iyo wixii raali ka dhamaanba way wadaagayaan dulmiga runtiina waxaan u jeedinaa macnaha ka Soomaali ahaan dadka muslimiinta meel ay joogaanba culimadu inay ka hadasho cuqaashu ka hadasho dadka wax garadka ay ka hadlaan dulmigu meeshu doona bari la saanad bu ka dhacaya saadamba meel kale ka dhici doona sanadka dambana meel kale ka dhici doona meel kastana waxa la rabaa dadka muslimiinta in la isku horkeeno iyadoo la adeegsanayo qabiil iyadoo la adeegsanayo xisbiyo
iyadoo la adeegsanayo diimo arrintaa haba yaraatee qof kasta waa inuu meeshu joogo ka hadlo inkirana dadka marka la fiirsho meesha ay ka yimaadeen waa meelihii Soomaaliya waqtigii abaaraha iyo dhibtu ay ka dhacday lagu badbaaday waxbarashada dadku ay u tageen laga soo tacliinta laga soo bartay kuwa jooga maanta waqooyi waxbartay waaweyn waa meesha wax ku soo barteen sablaala dadka la geenaya dabcan anu ma kala aqaan laakiin sablaala iyo dadkii ka yimid ama wax ku soo bartay baa laga yaabaa inay macallimiin ka yihiin wadanka arintaas waxa weeye dadkii saa u soo dhaweeyay inaga saa laga yaabo waqooyi inay u soo dhaweeyeen dadkii reer waqooyi markaa ka yimid abaarihii soo dhaweeyay beeraha siiyay guryaha siiyay in maanta la yiraahdo koonfur baad ka timaadeen ama baydhabo jannay baad ka timid waxa weeye runtii waa arin aad iyo aad u foolxun waxaana weeye waqooyi maanta waxa la cunayo quutu daruuriga dhulka ka baxa kala bar waxay ka yimaadaan gobolada Bay iyo Bakool waa dadkii wax soo saari jiray waa dadkii wax ganacsan jiray waa dadkii xadaarada lahaa iyadoo la rabay in laga faa'iideysto aqoontooda iyo waxa ay yaqaanaan iyo say beeraha u fashaan iyo sida ay ganacsiga u sameystaan in maanta la yiraahdo gobolka umeydaan dhalan runtii waa arin xun oo aanu inkirano kuma raacsanin waxa laale wixii waxa sameeyay ama maamul ha ahaado ama ciddu doono iyo midabku doono iyo suu doonaba ha ahaade kuma raacsan haddaan nahay ka community ahaan dadkii halka soo jeeday waana in laga hadlo qof kasta meeshu joogana waa in la inkiro arintaana waxa weeye dadka gobolka Sool jooga ee magaalada Laascaano ku dhaqan caawa garaadadooda cuqaashooda macallimiintooda dadkooda aqoon-yahanka ah jaaliyadaha gobolada wadamada kala jooga runtii waa in arinta la iska bariyeelo annaguna Ilaahay subhanahu wa ta'ala وحلية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة dadka dulmiga sameeya arintan kaliya kuma dhacayso waxay ku dhacaysaa wax allaale wixii muslimaha ee deegaanka jooga ama u aamusay waxa weeye anagu arinta bari baan ka nahay ilaahayna waa uga baqnaa subhanahu wa ta'ala waanuna inkirana waana arin foolxun dadka waxa sameynayaan ilaahay waa inay ka baqaan bari waa la xisaabtamaya qabri bay galayaan qofku waxa weeye ilaahay dambiga uu ka galay ila astaghfirullah baa ku filan laakiin qof bani aadam oo human being dambiga aad ka gashid ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu shardi kula galay qofka inuu xaqiisa siinayo oo heli doono wuuna helayaa maalin uu helaba marka waxa weeye intaan aakhira leedin geenin dadka waxa sameynayo waxa ka waantooma joojiya ilaahay ummadda uga baqa aan rabaa hal qodob oo kale inaan ku biiriyo oo ah marka security laga hadlayo ama nimanka yimi ee hadda maamulka Somaliland ee dadka u masaafurinaya security reasons waxa ka horeysa horta dadka amniga wax ka yaqaan number 1 cidda gacanta ku haysa meesha horta in la xisaabtamo wali maynaan maqal intii dil ka dhacayay ama nin nabad sugid ha noqdo ama CID ha noqdo ama taliye saldhig ha noqdo ama taliye boolis ha noqdo darajadu doon hal ahaad ee loo soo xidhay dembi ama crime class caanood ka dhaca iyadoo taasi ay jirto laamaha amnigu waxay xaq u leeyihiin ama system hadduu meesha ka jiro wuxuu doonaba ha ahaado haddii deegaan dil ka dhaco oo mar labaad uu ka dhaco oo mar saddexaad ka dhaco cidda ugu horeysa arinta lagu maxkamadeeyo ama wax laga weydiiyo waa cidda security-ga meesha lagu ogaa waxa dhibaatadu ka taagan tahay kuwii la maxkamadeyn lahaa ama la casili lahaa ama la xiri lahaa yaa waxay masaafurinayaan kuwa kale oo masaakiin ku sii tumanaya waxaan xusuustaa 1948 ilaa 47 meelaha garaad jaamac garaad cali يعني wadaada baa yimi Laascaanood kulli dadka in badan baa taariikhda haysa ninkii Ingiriiska joogay baa wuxuu yiri ninkan ka masaafuri magaalada hebel yahay sheekh hebel ninkaasi galbeed buu ka yimi garaad jaamac wuxuu yiri hadaan labada mid masaafurinayo Ingiriisow adaan ka masaafurin lahaa ninkan dambina kuma haysid cid wuxuu sheeganaysana iimaad sheegin horta in carab dheeraan de anigu maanta ka masaafurin lahaa laakiin maalinteed maaha taa horta intaasaan ka oranayaa in carab dheere waad garanaysaan oo dadkuna waa garanayaan ninka de hawsha wada wayna carab dheere
dadkan kale waa gacmihiisii iyo wixii wax loo dirayay muhiimi ma aha dadka reer laascaanoodna waxaan leedahay waroy waxaa idinku caddaatay inaad magantihiin magan ma bariiso laba magadood isma bariyaan sidan dhaantaa laydinka rabaa inaad uga digayga xataan arrintan Soomaali weynna waxaan leedahay way idinka tacsiyadeynaynaa iyo dadka reer koonfur galbeed labadaba waa ka tacsiyadeynaynaa arrintaa si ballaaran baan uga tacsiyadeynaynaa warbalna sugo oo waqti taariikha noo horreyn baa noo dambeysay waxa la wixii meesha ka dhacayna kuma raacsanin maamulka Somaliland iyo cidii u shaqeysa ya arrinta mas'uuliyadeeda iskale aakhiriya adduunba dadka kale meesha joogaana kulli inay ka hadlaan oo wixii kaga tooboon ay ka yiraahdaan isin iyo dhaqan iyo intaba haday tahay afiya adin baa in laga hadlo weeye intaasana anagu leedahay waxaana la qabaa odayaashii hore arrintaasna cidda mas'uuliyadeeda leh ee dilkaas ama kuwa hore ha noqotay ama kuwa dambe la dili doono ha noqotay waxa weeye waa cidda security-ga meeshaas mar haddaan cid loo soo taagin oo la oran hebel iyo dadkaas dambiyada lagu hayaa in la yiraahdo qoomiyada hal la tarxiilo waxaan isleedahay waa la dambabesayaa waa la dabindhuudayaa inahaasaan uga baxayaa waqtigeeda laga xisaabtami doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah أما بعد أنا ما أقول هذا فرحان جامع اللي هذا وحن كهذا يا أرنت قضية هذا وياش يجور يا كهذين أو أرنت وكل عادي مقالة لاسعانات أرنت صو رنتي وحوجب وأن هرو قدعين دول كهدت كديجان صول سنة عين أي مقارنة ساي كو صنطناية أنت عاد مقارنة ساي دتك وسودوية ورنتي مرتضى وفي عن دتك نوع عاصها مانتا in la yiraahdo waxa laga tagxeelay dhulkoodii dad oo deganaa 30 sano ugu dambeeyay oo kuwa tagxeelaya ay uga soo horeeyeen kuwa tagxeelaya waxa laga yaabaa in 10 sano ama 5 sano u dambeeyay inay joogaan kuwana waa dadka joogaan 30 sanadood ka hor baan ku ogaa iyagoo degan oo dukaamo kule oo lagu soo dhaweeyay waa meesha ay isugu soo tilmaameen ka baydhabo iyo bakool meel kasta jooga meesha dhulkan deegaankan kaalaya oo ay telefoonada isugu dirjeen oo aan goobjoog ka ahayn dadkuna ay raali kaga ahaayeen oo cid alaalay cid magaranaysa saa u eegaysa aan jirin marka waxa weeye taasi waxay ka mid tahay waxyaalihi hore oo dadka daraawiishta ah oo dhulka degan magacoodii dhagtooda lagu dilayay waana wax lagu tashaday oo la yiri dadka dhulka degan in dhagtooda iyo magacooda iyo muuqooda la baabiyo oo taariikhdii hore ay lahaayeen dhulka la geliyo waxaanu leenahay waxa sameynaya ma aha dadka ka dhashay waa la yaqaan dadka waxa sameynaya waa dad waxa way ku soo duulay dhulka wixii hore ay sameynayeen fool xumada ahaa oo la wada garanayo oo foosha xuma oo dhulka ka sameynayeen ayay maanta tan ku dareen tanina waa meeshii u dambeysay oo in la yiraahdo dad masaakiin oo dadkan ka dhulka shaqaysanayay in la yiraahdo laascaanood baa laga soo taxay gobolada SSC waxaan aqbalayn anagu hadaan dadka deegaanka u dhashay waxaan leenahay cid kasta oo deegaanka joogto oo madax noqoto ama majaha noqoto waa in sida ugu dhaqsaha badan looga hadlo arinta hadaan laga hadlin magaaladan baa lagu rogay baa laba diigo islaayo la isku eegay baa lagu baabiyo ummadii hore dad iska dhan oo meesha degan oo xaasas kule oo deegaanka oo ku dhaqnaa oo 30 sano u dambeeyay degana in maanta laga raro oo cagaf la geliyo oo hadda waxa la sheegay sidii dadkii ka soo Haiti dadkii qaxootiga ahaa oo Mareykanka ku soo qaxay oo caruurahooda iyo dadkooda xilliga Donald Trump ay kala go'een ciyaalkii iyo dumarkii oo tama markii dambe ay 4 sano dambe dib soo helaan in hadda ciyaaladii iyo dumarkii iyo xaasaskii ay hadda isla yihiin oo qaar baabuurta la saaray qaarna ay meel jaaniceed aan lahayn hantidoodii iyo maalkoodii waxa cuqubada geysteen yaa ka mas'uula marka waxa ka mas'uula dadka deegaanka ka mas'uul noqonaya sababtoo waxa weeye iyagu haday raali ka noqdaan oo aan waxa ka hadlin oo ka dhiidhiin iyaga mas'uulka ah marka waxaan leenahay cuqaasha iyo garaadada iyo simada ha kacaan waxaan ayaan la dugsanin talaabaha laga qaado hala la kaco fadhigan hala kaco waa meeshii u dambeysay dadka anaguna waxaasina matalaan dadka deegaanka Soomaalidu meel baa joogtaa baydhabo way joogtaa bakool baa joogtaa dhul la kala leeyahay iyo deegaan la kala leeyahay ma jirto dhulka waa la wadaagaa dad Soomaaliyeed kuwan tagxeelayana dad Soomaali u kamid laakiin Soomaalinimo saa kaga bixi maayaan sidana magac Soomaaliyeed ku qaadan maayaan oo magaranaysa kaga gooy maayaan laakiin dhagaxmo bay siyaasanayaan kuwa xamar joogay meel kasta waa la joogaa dadku waa is dhalay marka waxaan hadal ku soo gabagabeeyaa arinta raali kama ahin